muddo 6 sano ah ayaa ka soo wareegatay markay isguursadeen Axmed iyo Maryam. Wax caruur ah iskuma aysan dhalin. Habeenada ka mid ah ayagoo is agjeefa ayay sheekaysteen, waxayna isweydiiyeen ayagoo cod hoose ku hadlaya sababta ay ilmuhu u heli la'yihiin. Sheekadii ayaa la dheeraatay waxayna isku bedeshay buuq. Ugu dambeynna waxaa lagu heshiiyey in ay dhakhtar berri u tagaan si ay u ogaadaan dhibka dhanka uu ka jiro. Ayagoo qofna u sheegin ayay subaxii dhakhtarkii aadeen. Baaritaan kadib, Axmed ayaa wuxuu u soo galay dhakhtarkii si uu natiijada baaritaanka ugu sheego. Dhakhtarkii wuxuu Axmed tusiyey natiijadii baaritaanka, taasi oo ahayd inuu Axmed caafimaad ahaan fiican yahay, balse ay Maryam qabto xanuun isla markaana aysan suurtagal ahayn in ay uur qaado sida uu dhakhtarku sheegay. Wuxuuna intaasi ku daray in aanan rajo laga qabin in ay ka bogsato xanuunkaasi. Axmed markii uu natiijada arkay wuu u murugooday, saas oo ay tahay haddana wuxuu ku shukriyay Allah. Dhakhtarkii ayuu u sheegay inuu xaaskiisa u wacayo si ay gudaha ugu soo gasho, laakiin wuxuu ka codsaday inuu dhakhtarku u sheego Maryam in aysan wax xanuun ah qabin, dhibkana uu yahay dhankiisa. Dhakhtarkii arrintaasi inuu sameeyo waa uu ka diiday. Axmedna waa uu ku adkaystay ilaa ugu dambeyntii uu dhakhtarkii ka ogolaaday. Waxaa loo yeeray Maryam. Markii ay gudaha soo gashayna waxaa loo sheegay inuu xanuun qabo Axmed, kaasi oo aanan la rajaynaynin inuu ka bogsado, isla mar ahaantaana aan suurtagal ka dhigaynin inay ilmo dhalaan, balse ay iyadu fiican tahay. Axmed markii uu warka dhakhtarka maqlay waa uu aamusay, wuxuuna fiiriyey Maryam isagoo oo wejigiisa ay ka muuqato sida qof quustay oo kale. Noloshoodii ayay sii wateen ayagoo dulqaadanaya, balse markii 5 sano ay ka soo wareegatay xilligii baaritaanka ay sameeyeen, Maryam waa ay dulqaadan weysay. Waxa ayna u imaatay Axmed si ay ugu sheegto go'aankeeda. Waxayna ku tiri sidaani: Axmed, aniga iyo adiga waxaan isqabnaa muddo 11 sano ah, ilaa iyo intaasna wax caruur ah maanan helin. Aniga weligay kuguma soo hadal qaadin furiin, balse qoyskayga iyo saaxiibadeydaba waa igula taliyeen in badan in aan furiin ku weydiisto. Anna kama yeelin sidaasi anigoo og inaad madhalaysi tahay, laakiin markaani waxay u muuqataa intaasi ka badan inaan sabri karin. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad iska kay furto si aan u guursado nin kale oo aan u helo ubad ay indhahaygu ku qabowsadaan. Axmed markii uu maqlay hadalka Maryam kuma uusan farxin. Wuxuuna ku yiri arrintani waa amar Alle, waxayna u baahan tahay in loo sabro. Isagoo intaasi u raaciyay in ay muddo kala siiso, laga yaabo inay wax isbedelaan. Maryam waa ay ka aqbashay iyadoo u sheegtay in ay siinayso muddo 1 sano ah oo kaliya. Haddii sanadkaasi ay wax isbedeli waayaan ay kala tagayaan. Sidaasi ayaana lagu heshiiyey. Maalmo yar kadib, Maryam waa ay xanuunsatay, isbitaal ayaana la seexiyey. Xaaladeedana aad ayay u liidatay. Natiijada baaritaanka waxay noqotay in mid ka mid ah labadeeda kaliyadood ay howlgab ay noqotay. Maryam markii ay ogaatay natiijada waxa ay la hadashay Axmed iyadoo dhahaysa arrintani oo dhan waxay igu dhacaysaa dartaa. Maxaa mar hore iska kay fur weysay? Aniga waxaan rabaa inaan caruur dhalo. Waxaan rabaa inaan ilmahayga arko. Haddii aan hadda sidaani gablamka ah ku dhinto ka waran? Axmed wuxuu ku yiri aniga waan baxayaa, safar dibadda ah ayaan u socdaa, waxaana ka xumahay dhibka ku haysta. Waxaana rajaynayaa inaad dhawaan bogso doonto. Haa, orod iska bax ayay ku tiri ayadoo xanaaqsan. Waan baxayaa, laakiin waxaan u baxayaa in aan raadiyo qof kili kuugu deeqa, ayuu ku jawaabay Axmed. Maalin ka hor maalintii qaliinka ayaa waxa u yimid Maryam. Dhakhtarkii wuxuuna u sheegay in la helay kilidii loo gelin lahaa, loona diyaarinayo berito qaliin lagu sameynayo. Maryam waxay soo xasuusatay ninkeeda iyadoo isweydiisay, waa nin noocee ah? Adigoo berito qaliin galaya ayuu iska maqan yahay. Si kastaba ha ahaatee, qaliinkii waa lagu guuleystay. Usbuuc kadibna waxaa soo laabtay Axmed muddo 11 bilood ah. Qaliinka kadib, Maryam waa ay umashay. Waxay iyada iyo Axmed ay heleen cunugoodii koowaad. Aad ayayna ugu farxeen. Noloshoodiina waa isbedeshay. Maalmaha ka mid ah, Axmed wuxuu guriga ku iloobay buug yar oo xusuus qor u ahaa, kaas oo ay ugu qornayd sir uu muddo qarinayay. Buugga wuxuu ugu dul tagay miiskii uu ku quraacanayay. Maryam ayaa aragtay buuggii, waa ay furtay si ay u fiiriso waxa ku qoran. Waxay ku dhawaatay in ay suuxdo markii ay aragtay sirta buugga ku qoran ee ku saabsan iyada iyo saygeeda. Aad ayayna u naxday.
isla markiiba waxay wacday Axmed markii uu u yimidna way ilmeysay wayna raali gelisay. Arrintaa kadib Maryam muddo 3 bilood ah ma aysan fiiri karin Axmed wejigiisa xishood iyo yaxyax dartiis. qofka kelida ugu deeqayna qof kale ma ahan ee waa isla Axmed. dhakhtarka ayuu ku sir qarsaday ilaa iyo inta uu ka bogsanayana qol dhakhtarka uu kaliya uu og yahay ayuu ku jiray. iyadana wuxuu ugu sheekeeyay in uu safar aadayo.